بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 29 Juun 2019 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu xeer madaxweyne LR 30 31 32 33 34 uu ku magacaabay mas'uuliyiinta hoos ku xusan oo kala ah كو سرية سياسيين عمر ديرة وحلو مقعابي تريها عيدمada دراويشتا ee dawladda Puntland سرية قوتا أحمد علي الصلاة وحلو مقعابي تريا كحيجين كلاباد ee ciidamada دراويشتا ee dawladda Puntland سعيد محمد فاهية وحلو مقعابي قدوميها gobolka كركار عبد العزيز يوسف محمود عامر وحلو مقعابي قدومية كحيجين gobolka كركار gaashaana dhexe Cabdiqaadir Jaamac Dir waxa loo magacaabay taliyaha qaybta ciidanka booliska ee gobolka Karkaar Abwaan Cabdiqaadir Cabdi Shube waxa loo magacaabay gudoomiyaha kooxda fanka ee Waaberi Puntland Cabdicaziis Cilmi Yuusuf waxa loo magacaabay la taliyaha arrimaha isgaarsiinta iyo wafaafinta madaxtooyada dawladda Puntland dhammaan xeerarka uu soo saaray madaxweynuhu waxay dhaqan galayaan marka uu saxeexo dhamaantoodna uu saxeexay aad iyo aad u mahadsantiin